magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaybta uu ka aramiyo maamulka Puntland waxaa lagu xiray 3 wariye oo wardoon ka ahaa xaalad markaasi ka taagnay suuq ku yaala gaalkacyo oo ganacsatadii ay u xireen arrimo la xiriira canshuur kordhin lagu sameeyay haddaba waa la xiray waana la soo sii daayay iyadoo aan wax dambi ah lagu soo oogin mid ka mid ah wariyaashaasi waxaa qadka telefoonka kula xiriiray warbixin inoogu diyaariyay Cabdullaahi Sheekh Doon oo ka tirsan SBS booliska gobolka mudug gaar ahaan kuwa gaalkacyo ee Puntland ayaa maanta xabsiga u taxaabay 3 wariye oo kala ah Axmed Maxamed Cali Caanagel Cabdiweli Jaamac Cagarane iyo Saciid Cabdullaahi Kulmiye Nadaara kuwaas oo ku guda jiray waajibaadkooda shaqo ee la xiriira tabinta canshuura dheeraada oo lagu soo rogay ganacsatada magaalada gaalkacyo dadaal dheer oo lagu bixiyay si doontooda ay 3daasi wariye ayaa ugu dambeyntii suurta gashay in xabsiga laga sii daayo Cabdiweli Jaamac Cagarane oo kamid ah wariyaashii 3da ee la xiray oo qadka telefoonka igu waramay ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyay sababta la xiriira ee loo xiray isaga iyo suxufiyiintii kale aad u mahadsantahay Cabdullaahi Sheekh Doon saaka subaxnimada waxaana soo wacay qaar kamid ah ganacsatada magaalada gaalkacyo oo laga xiray goobaha ganacsiga laga xiray waxaana noo sheegeen inay jirto canshuur lagu soo rogay dowladda Puntland isla markaasna canshuurtaasi ay si awoodin oo ay ka cabanayaan canshuurtaasi anaga shaqo kale ayaan jiray rag ka tirsan wariyaasha ayaa aaday goobtaasi si ay uga soo duubaan warbixin ganacsatadaasi cabanaysay anagu markii aan soo gaaray xarunta amal oo ay ku shirayeen ganacsato badan loo sheegay inay xiran yihiin oo xiran yihiin saldhigga dhexe ee magaalada gaalkacyo waxaan tagnay saldhigga hortiisa annagoo warbixin ka raadinayna taliyaha booliska iyo turbiyataariyada oo qaabilsan arrintaasi inkastoo meesha markaan tagnay aan la kulanay dad badan oo meesha ku xiran oo boqolaal qof gaaraya oo ahaa ganacsato reer gaalkacyood isla markaasna ganacsato loo haysto inay diidaan canshuurta oo bixin waayeen annaga waxaan la kulannay oo noo yimid xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug Cabdinuur Geesay oo ku soo gaaray goobta oo buuqa ka socday maadaama wasaaradda maaliyadda ay soo rogtay arrintaani in canshuur ay soo rogtay oo ku saabsan canshuurta iibka ku saabsan isla markaasna ganacsatada canshuur laga qaadayo markii goobta uu soo gaaray annaga ciidan u watay iyo qayb kamid ah booliska oo joogay saldhigga dhexe waxaana loo geystay jirdil aniga iyo Axmed Cali Caanagel iyo Saciid Cabdullaahi Kulmiye Saciid Nadaara waxaana la jirdilay qalabkayga waana la ka qaaday waxaana la ku xiray la geliyay sheelada muddo markaan halka ku jiray waxaa yimid gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse Nuur aad baan ugu mahadcelinayaa oo ka qayb qaatay runtii waatahay siideenta waan u gudageli doonaa waxyaabaha la idinku xiray markaasi taagnaa ma la idin sheegay wallahi waxna la ku xiray oo hadda loo sheegay ma jiraan oo waxna la ku xiray ma aysan jirin oo ma jiraan waxna la ku xiray waxaa jirta in arrintaasi aan waxba ka ogeyn annaga markii aan meesha tagnay aan xitaa aan u soconaa xuduudna aan u socon laakiinse aan rabnay inaan wax faahfaahin ka ogaano balqaadka canshuurtaasi tahay inay sharci tahay inay ganacsatadu waxay ka mudaharaadayaan aan ogaano aanu meesha u tagno waa tahay marka inta adinka aad goobta aad tagin aad warka aad ka doonayseen ma jirto xiriir aad sameyseen haday noqon lahayd taliska ciidanka booliska ama maamulka canshuuraha qaabilsan markaasi ma jirin Cabdullaahi waa mahadsan tahay waxaan wacanay oo la hadalay isla markaasna qaar ka tirsan wariyaasha la soo hadlay agaasimaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug ana xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug waxa uu aan arrintaasi aan u sheegnay inay jirto ganacsato cabanaysa isla markaasna ka cabanaysa in ay canshuur lagu soo rogay oo ganacsiga magaalada gaalkacyo guud ahaan uu xiran yahay arrintaasi isagoo wax jawaab ka bixin oo wax jawaab naga siin waxaan kula kulanay meesha annagoo rabno xaaladda in la dejino xaaladda si mataqaana ay meesha dhib uga dhicin ayaan waxaan rabnaa asaga cod ka qabanno ama mataqaana turbiyataariyada arrintaasi qaabilsan laftirkeeda aanu helno asaate mas'uuloobin oo halkaas isla markiiba goobta markuu soo gaaray waxa dhacay jirdilkaas iyo hargaas loo geystay waxaa jira isrutaag weli lagu sameynayo wariyaasha Soomaaliyeed
kuwaasoo dhibaatooyin xooggan ku qaba mas-uuliyiinta xilalka haya iyadoona laga hor istaagay inay tabiyaan wararka saxda ah ee la xiriira cabashooyinka ay qabaan bulshaweynta ay u shaqaynayaan. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon, SBS TV, Muqdisho.